Bismillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Waxaan halkii ka sii wadi doonaa casharadeenna imtixaanaha noo ahaa oo ku saabsan cilmiga statistics-ka. Waxaan noo soo dhamaaday chapter-keennii koowaad oo aan uga soo hadlaynay dulmar guud oo aan ku sameynaynaa asaaska cilmiga statistics-ka. Maantana waxaan bilaabi doonaa qayb cusub oo ku saabsan ereyada asaasiga ee statistics-ka iyo sida xogta loo ururiyo. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay population versus sample. Labadaas terminology oo kala ah population iyo sample. Population iyo sample labadaas erey waxay ka mid yihiin ereyada ugu muhiimsan, ugu isticmaalka badan, uguna soo noqnoqodka badan markaan ka hadlayno cilmiga statistics-ka. Annagoo taa ku saleynayna waxaan leenahay fahamka micnaha mid kasta oo kamid ah labadan erey iyo farqiga u dhexeeyahay waa mid aad u muhiim ah. Ka soo qaad qof statistician ayaa wuxuu danaynayaa inuu ogaado boqolkiiba dhammaan codeyaasha magaalo ee u codeynaya murashax gooni ah doorasho. 2 inuu ogaado iibka guud ee 2009 dhammaan shirkadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Sidoo kale inuu ogaado qiimaha dhammaan guryaha ku yaala magaalada Xardheere. Tusaalayaasha aan kor ku soo aragnay, qofka statistician-ka wuxuu danaynayaa dhammaan codbixiyaasha, dhammaan shirkadaha iyo wixii sii gadeen, dhammaan qiimaha guryaasha. Sidaa darteed waxaan leenahay mid kasta oo kamid ah kooxaha aan kor ku soo aragnay, yacni ha ahaadan qiimaha dhammaan guryaha iyo codbixiyaasha dhammaantood iyo dhammaan shirkadaha magaalada Muqdisho ku yaala waxbay sii gadeen, mid kasta oo kamid ah waxaan u aqoonsanaynaa ama waxa loo yaqaanaa population ayaa loo yaqaanaa. Markii statistics-ka laga hadlayo population, ereyga population macnaheedu ma ahan inuu yahay kaliya inuu u taagan yahay xog laga soo ururiyay koox dad ah inuu taagan yahay kaliya macnihiisu maaha. Laakiin wuxuu noqon karaa xog laga soo ururiyay guryo, xog laga soo ururiyay dhammaan buugaag, xog laga soo ururiyay sidoo kale telefishinno ama gaari ama wax la mid ah. Dhammaan waxyaabaha aan danaynayno ha ahaadaan sheeyaal ama ha ahaadaan dad ayaa wax loo yaqaanaa population ama wuxuu taagan yahay population. Inta ugu badan go'aamada waxaa lagu saleeyaa qayb kamid ah population-ka. Yacni in population-ka qayb kamid ah la soo qaato then laga soo ururiyo xogtaas analyze lagu sameeyo kadib ayaa go'aan lagu qaataa. Sidaa darteed maxaan leenahay soo qaadashada ama xog in laga ururiyo qayb kamid ah population-ka ayaa waxa loo yaqaanaa sample. Oo haddii aan dib ugu laabano tusaalayaashii aan soo qaadanaynay oo ahaa population-ka, meeshii qofka statistician-ka uu ka danaynayay inuu ka ogaado qiimayaasha dhammaan guryaha ku yaala magaalada Xardheere. Tusaalahaas oo ahaa population, haddii aan rabno in aan tusaale ahaan 20 guri aan rabno inaan ogaano qiimayaashooda, 20kaas guri oo kamid ah dhammaan guryaasha ku yaala magaalada Xardheere, haddii aan 20 guri bis soo qaadanayno waxaan leenahay this is sample oo waa sample ayaan leenahay maadaama aan qayb kamid ah ka soo qaadanay population-ka guud. Figure-kan ayaa wuxuu muujinayaa soo xulashada sample laga soo xushay population. Waxaad aragtaa sanduuqa weyn inay ku jiraan kumanaan dad ah ama population inay ku jiraan ayaad aragtaa. Halka sanduuqa yarna uu muujinayo sample laga soo qaatay population-ka guud inuu muujinayo ayaad aragtaa. Sidaa darteed sample-ku nisbiyan uu ka yar yahay population-ka sababtoo ah sample-ku waa qayb kamid ah population-ka. Yacni waa members ama xubno laga soo qaatay population-ka. Ururinta xog taa oo laga helay xubnaha uu ka kooban yahay population ama xubnaha ay ka kooban tahay muunado ayaa waxa loo yaqaanaa survey ama sahan. Survey-gu marka wuxuu kala baxaa 2. Qaybta koowaad waxay noqonaysaa sahamin ama diraasad ay ku jiraan qayb kasta oo kamid ah dadka ama waxyaabaha la bartilmaameedsaday ayaa waxa loo yaqaanaa census.
badanaa si loo sameeyo sahmin waxaan dooranaa muunad kadibna waxaan ka soo aruurnaa xogta looga baahan yahay xubnaha ay ka kooban tahay muunadaasi kadibna waxaan ku qaadanaa go'aan anagoo go'aankeena ku saleynayna xogta aan ka helnay muunadaas ama sambalkaas. Sahminta noocaas ah oo lagu sameeyey muunada ayaa waxaa loo yaqaanaa sample survey. Tusaale ahaan haddii aan soo aruurino xog ku saabsan 2009 ee dakhliga soo gala dhammaan amase dakhliga soo galayay dhammaan faamiliyasha amase qoysaska ku nool magaalada Hargeysa. Sahminta noocaas ah waxaa lagu qeexi karaa amase waxaa loo yaqaanaa census amase waxaa loo yaqaanaa tirakoob. Haddii aan dhanka kale ka fiirino isla qoysaskaas haddii aan ka soo dooranno 50 qof haddii aan 50 qof qoysaskaas ka soo dooranno waxaa lagu qeexaa amase waxaa loo yaqaanaa sample survey ayaa loo yaqaanaa xogta aan helayn amase qaabkaas processka aan rabnaa waxaa loo yaqaanaa sample survey. Marka casharka intaan ku guda jirnay waxaan in badan aragnay in go'aamada badanaa lagu saleeyo sample surveyga ama si guudba sambalka in lagu saleeyo. Sababaha marka sample surveyga looga doorbido maxay tahay looga doorbido waxa loo yaqaano tirakoobka. Sababaha looga doorbido maxay tahay? Sababta koowaad oo sample surveyga loo doorbido waxay tahay sameynta tirakoobka ayaa waxay tahay mid aad u qaali ah sababtoo ah ama mid qarashaad badan ay ku baxayso waaye. Sababtoo ah populationku waa mid aad u tiro badan ayna adag tahay in mid macluumaad looga soo aruuriyo. Sababta labaad waxay tahay in sameynta tirakoobku ay qaadanayso waqti aad u badan inay qaadanayso. Sababta saddexaad waxay noqonaysaa xaalado badan aad ayay u adkaanaysaa amase caqli galba ma ahan in la garto xubin kasta oo ka mid ah populationka la bartilmaameedsanayo amase populationka targetka noo ah. Casharkeena maanta halkaas uu ku ogyahay. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saartid, videogana like saartid, wixii aragti ah amase dhiirigelinana aad igula wadaagtid qaybta commentiga. Sidoo kale videoga dad ka heshay asxaabtaada la sii wadaag. Mahadsanid.